meeshii la joogay iyo meesha maanta la jooga aad ay u kala duwan yihiin. taas waa idinku bogaadinaa waana idinku ammaanaa in aadan fadhiyina ee maxaan ku raadin la socdo inta kadib faraska soo ordayo waxa usha loogu sii dhuftaan ilaa ka sii dheereeyo. marka waxaan rabnaa inaad ka sii dheereysaan saraakiisha waa isku dirinaa taliyaha muxuu ahaay ciidanka booliska kan ciidanka xoogga dalka kan maalin walba maxkamadan askar lagu sii qulquliyay saraakiisha askarta xukunta aawi si askari dambi u yeeshay ayadoo sarkaalkii uu nadiif yahay dambigaana dambi oo askariga kaligiis geli kara ma yahay dambi laga celi kara askariga ma yahay dambi oo meesha ku galaayay sarkaalba aanu ka warqabin miya war sarkaalkii aawi sarkaalkii inaan bal laga hadlayninba askariga lagu dhageeyay wara maalin walba askartaan maxkamadda ku soo jiidaysaan joojiye saraakiisha waxaan mas'uulka ka hadal keen ugu yaraan dayacada ku jirto ugu yaraan waay hadduu xataa dambiga wax ka ogeyn oo ord isbaar isoo dhig aanu dhihinba dayacada ku jirto inuu ka warqabi waay askartiisi xaaladoodu waa sarkaalka wuxuu mas'uul ka yahay 10 kan qof 30 kan qof 100 kan qof 1000 kan qof uu mas'uul ka yahay inuu ogaado xaaladooda waxay ku sugan yihiin 10 kan qof muxuu sarkaal xigeenkan oo mas'uul ka yahay ama 30 kan ama 100 kan sarkaalku uu madax ka yahay inuu ogaado maxaa ku dhex jira inuu dadku u kala saariyo uu yaqaano yiri cali iyo jaamac iyo maxamed iyo kuwa fidnaa waaye si gaar ah loo ilaaliyo ha laga warqabo xaaladooda hal ogaado askari markaad noqonaysay inaad qof Soomaali ah oo muwaadin ah oo adiga dhibkaaga oo ku seexdo sariirtiis inta taga cawada uu seexdo yira booliska yaa wadooyinka taagan oo ilaalinaya booliska wadooyinka taagan yahay rooba ku da'ayo waa lugaynaya waa la dilayaa waa la daqraya waa la caynaya maxaan ku yiraahdaa wax walba uu la kulmaya si muwaadiniintaas ay u hurdaan oo xoolahooda u ilaashadmaan oo sharaftooda iyo karaamadooda ay u dhowrsanto oo sharcigu uu sareeyo waaye waxa uu bixinaya qofkii marka inuu booliska ahaada rabo waxaasna inuu bixiyo aanan rabin inuu iska qayilo oo iska jooga rabo jamaaca kale ka mid yahay booliska ka mid maaha marka jamaacada uu ka mid yahay in loo diro liiraado ahlan wa sahlan bal ord waa xaqaasaad ka mid tahay meeshaad ka mid tahay aad ama askari hada ama sarkaal aad wuxuu aanayaa marka horta waxa loo baahan yahay waxay tahay waxa waayihii dambo dhan maadaama nidaamkii dawladnimada xoogaa marna uu naga burburay marna uu naga daciifay marna uu si naga ah waxa dib nagu noqotay in qawaaniinta lagu dhaqmo waxa dib nagu noqotay in curfiga la dhowro wax badan oo qaanuunka aan ku qornayn laakiin dhaqan noqday oo booliska uu leeyahay oo la dhowraa jiro oo booliska dhan ay dhowraan laakiin haddana buugaagta booliska hadaad raadiso aadan ka soo dhaxilin waxaasi inta badan marka wax wanaaga waay wax xun curfi ma noqdaan ama heybad ma keenaan waxa la isku xantaa leeyahay booliska iyo military akhyaar waaweyn ka talisay meesha inay sii joogto rabto boolisku wuxuu u baahan yahay mar walba dhiig cusub inuu soo shubo dhiig cusub inuu soo shubo oo dhalinyaro cusub ay soo gasho oo aqoon lagu soo galo oo karti lagu soo galo senior citizenska ama muwaadiniinta weynaatayna ayaguna inta ay wili ay ra'yi iyo talo iyo aqli iyo tababar iyo aqoon ay gudbi karaan in laga gudbiyo marka kalena in loo sameeyo si uu karaamadiisa iyo sharaftiisa ay ku ilaashanaa karto labada u baahan waxay tahay oo curfi noqotay oo in la bedelo ay laazim muhiim ay tahay hadii kale lama jiraayo waxa waaye false reporting xaaladda aan laga run sheegin xaaladda taagan si kasta u fool xumaatay aan runta laga sheegin laana xaaladda marka la sheego go'aan lagu gaara marka ninka mas'uulka ah ee taliyaha ee meeshaas mas'uuliyadaasi ay ku dhacaysaa waxa report aan sax ahayn marka la soo siiyo go'aan aan sax ahayn uu gaara definitely reportka beenta maxaa ka mid ah askar maqawaa joogtaa in la yiraahdo askar yaa maqan meeshay oo laynka gaduudnaayo haddana la tusayo ku jira hadda de si uu waajooga ku yira waayay markii la hortagay ee la askariga inta soo jooji ma soo jooji waysaa waa maqan yahay fasax ma qaba warqadiisa fasaxa lama haayo baxsad waay fakat waay wixii magaciisa doonaan loo bixiyo laakiin waa huba haddii taliyaasha inta la weydiiyo maxaa kuu jooga meeqa kuu joogta la dhihi lahay
leenkaas gaduudan number kuma jiri lahayn ama laba saddex qofood ku jiri lahayn oo kuwa salaada dukada ay soo sheegeen booliisku dada taagan dhimanaya dhaawacmaya maalin walba shaqada booliiska in ma qabataa marka ninka naftiisa soo rajidka taagan tuuga la dagaalamaya ee isku qarxinaya ee qaraxiisa u dhinac uga dhacaya ee muxuu ahaay inuu wuxuu sida asoon ogaan wariya istaag dhahaya oo horaha dowrab inta iska qarxiyo isla dhima ninka intaas soo sacrifice sameynaya wax walbaalo waaye in la yiraahdo ma qabataa midka u keenaya marka soo in laga qabto waajib soo muqaddas ah Soomaa tuuga asaga wax walbaalaha ah in la qabto Soomaa waxaan qabnaa in badan oo caruur ah oo aan waalid lahayn kuwa waalid mana waa agoon kuwa muxuu ahay hooya laga yaabaa bas inay leeyihiin aabihi inuu ka maqan yahay aabihi dhintay waxa laga yaabaa inuu aabihi oo maxaa ku raada disable yahay oo curyaan yahay oo baahiya gaar dadka qaba uu ka mid yahay ama hooyadii aabihi ay yihiin labadaba waxa kamid ah qoysda hooyay aabbo waxyari ay hayso ilmahoodii ay muxuu ahay aanan ba ku filnayn inay haayaan duruuftaasi markii waxay keenay cunugii xuquuqdiisa inuu waayo asoo bad qaba oo nabad qaba inuu xuquuqdii waayo iyo xuquuqdii in la weysiiyo suxun loo isticmaalo cunugii aqli kala haramara kaala qof soo dil kaala kan soo waxay dambiye qaarkood in caruurta loo isticmaalo caruurta waxa la yiraahdaa waxaan sida ay jirkoodu aanu u korin xisigooda dareenkooda naxariistana ma korsana dareenkooda naxariista ma korsana in la koriyo u baahan yahay haddii marka waalidkii iyo yani environmentkii jawigii fiicnaayo cunuga barbaarintiisii iyo caqligiisii iyo akhlaaqdiisii iyo baarinimadiisii wixii ku koraan nolol adagna uu ku jiro mid ciyaar suuq oo ka faa'iideysanayna uu gacanta ku dhigo cunugii wuxuu noqonayaa cunug dhib badan uu noqonayaa booliiska waxyaabaha waajibka uu ka saaran yahay ka mid yihiin inuu xanaaneeyo inuu ogaado ka fikiro fiiriyo haddaan wuxuu qaban karin inuu markaas awooddo aan saamixin xataa inuu og yahay oo meelaha ay joogaan iyo inaan la isticmaalin iyo inaan dambiilayaashu aanay caruurta isticmaalin shabaab aanu isticmaalin kan daroogada ka shaqeeya aanu isticmaalin balaayada aanu isticmaalin in booliisku uu ka shaqeeyo kamid tahay si looga shaqeeyo caruurtii waa inay ihtimaam gaar leeyihiin canshuuraha booliisan u xil saaran Soomaa aan leenahay ilaalinta cashuuraha oo janaal bariisa oo madaxda ka yahay garsoorka haddaan taliya isku haysan oo lahayn booliis garsoorka u xil saaran oo garsoorka ka shaqeeya muqaadaraadka dadaan u xil saaran inay la dagaalamaan Soomaa yaa noogu xil saaran caruurta iyo ilaaladeeda iyo tarbiyadeeda iyo ka warqabkeeda ma aha kuwa janaal cali oo haayo ee agoonta booliiska ah ama kuwa booliisku awood u helay ayagoon agoon booliis ahayn xataa inuu soo xoreeyo wax baro sidoo kale booliisku inay qayb leeyihiin oo xaajaad gaara waaya haweenka iyo shu'uuntooda iyo amuurtooda dhageysan saldhig kasta ay gabar sarkaalad ah oo xirfad leh oo aqoon leh oo wax baari karta oo wax ogaan karta inay joogto waay hadafkaas inaan raadino maanta meeshii aan ka gaari laba saldhig oo kamid ah saldhigyada xamaraan geeyay shan aan geeyay bari maanta ilaa aan saldhig kasta maalinta dambe gabar iyo labo maxaan ku raadaay aan geeyno arimahaas waxaan rabaa in oo aan dib u eegno hadii alla yiraa oo ay meeshaas ka socdaan sidaas waa sida kaliya booliis casri aan ku yeelan karno waajibaadka dhabta ah oo booliiskana aan ku gudan karno oo aan kuna amaanaan karno inaan waajibaadkeena gudan laakiin maxuu ahay yaacda haday tahay kuma badan maxaan ku balanay booliiska albaab laga baxa loo yeelo gacmo daahira wax daahiriya corruptionka alla joojiyo time will come waqti uu imaanaya la isweydiiyo min ayna laka hada hantidan xageed ka keentay maalin la isira way imaanay sharaf darro iyo karaamad darro 20 sano booliisku u shaqeynay xoolahan uu dadka ka dhacay intay u yaaleen ama 20 sano wasaaradda maaliyadda ka shaqeynay xoolahan saan ku yeeshay war kuma qabato khaatamada inay ka xumaato kuma qabato ogow maanta wixii jiraasiima jirayaan maanta ha ku caqli naqanin iska ilaali xoolaha islaamka adduunyo iyo aakhir bal adduunyadana karaamad darrad kula kuma aakhirana ilaah kugu xisaabtamayo iyo dadka aad ka dhacday corruptionka aad iyo aad askariga booliiska ha iska ilaaliyo waxyaabaha kamid ah dadka daraagis kale in booliiska laga dhax saaro nin daraag leh wax kuma filna mishaarkiisa nin balwad leh mishaarkiisa kuma filnaa karo
وأنا العقد ديري هلا العقد ديري أنتو كيلا وأنا ضدك قاطع وهو قادنا كوربشن هو قادنا ورسك إلالي من كهلا إلالي عيدا كهلا جا إلالي ضدك بالود له هلا جا إلالي نم بالود له وأدكشن له oo xashish inuu cabay iyo daroogo inuu cabay iyo qamr inuu cabay iyo mid inuu isduro waxaas aan joogi karin la'aantood booliis muxuu ahaana laana waaba marka daba dadku dil xataa in la dilo ka shaqeeyna hal laga ilaaliyo booliiska ayadana inta ugu muhiimsan oo waa weyn wax badan oo loo baahan yahay booliiska marka police reform gudiga hadda la ii sheegay oo itus tabsida muxuu ahay sameey waa maasayina lagu abaal mariyaan lagu waxay laakiin guddi reform police reform waa inuu jiraa joogto waliba ah reformku waa la sameeyay wala soo eegnay maanta intaan waa maqata intaan waa la ruqsay intaan waa dhamaatay ma bari dhacay birida bay dhacay qadkaas gaduudan dad badan soo gala bariya qaar soo gali doonaan birida bana qaar soo gali doon marka in ilaalinayso u taagan inaan leenahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay mar kale waa aad iyo aad ayaan u amaanayaa una bogaadinayaa shaqada wanaagsan ee booliiska iyo horumarka levelka horumarka booliiska sameey waayo oo sameeyo waayo oo ku socdo aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa waa amaanayaa laakiin ogaada jaranjarta talaabooyin badan naga koreeyo wali oo inaan sii fuulna ay tahay yaanan ku qancin waxa maanta aan haysano aan u taagnaano waxa naga maqan sidaan ku heli lahayn waxa naga maqan waa wada garanaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin guul iyo wanaag iyo khayr idin rajaynaa